ciidamada ilaaliya badda Somaliland ayaa soo qabtay tahriibayaal miciin baday badaha xaaladoodu aanay sahlanayn. dhalinyaradani oo ku booqday xarunta laanta socdaalka Somaliland ayaa wajiyadooda laga dheehanayay diif iyo daal isku heshaday. waxaana xusid mudan in tirada dhalinyaradani oo gaadhaya in ka badan 20 dhalinyaro ay ku jireen haween. doontii dhalinyaradani siday ayaa la sheegay inay wadeen 2 nin oo u dhashay dalka Yaman. labada taliye ee ciidamada laanta socdaalka iyo waliba ilaalada badda Somaliland oo goobtaasi warfidiyeenada kula hadlay ayaa sheegay tahriibayaashina waa kuwan waxaanu dagaal kula jiraa tahriibayaal badan oo dalka Somaliland u kala dhaafa daafaha qaar ku qulqulo xagga Boosaaso qaar ku socda xagga xeebta Djibouti ama gobolka Selel taasoo hadda xayndaab adag ay iskuga kaashadeen ciidamada badda iyo immigration iyo police-kuba. laakiin dhacdadan waxaan ugu mahadnaqaynaa ciidamada ilaalinta xeebaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ku soo guuleystay inay markii soo qabtaan dadkii wax tahriibinayay doontii iyo tahriibayaashiba. taasoo imika hawlgal ballaaran aanu doonayna ku qaadno dadka tahriibayaasha meel kasta ay marayaanba. waa dhacdadii ugu horeysay amba hawlgalkii ugu horeysay midhihiisa ka soo dhashay taasoo taliye xigeenka immigration Somaliland uu hawlgal ku soo galay bishii dhaweyto uu ku soo xoojiyay wada shaqaynta ciidamada ilaalada xeebaha police-ka iyo immigration-ka. isku duubnadu waxay dhalisay inaanu maanta midhihii qabano oo dhacdadii saddexaad labaad ay isku daba xigto. waxaan ugu mahadnaqayaa ciidamada xeebaha oo leenahay wada shaqayn wanaagsan si aynu u ciribtiro tahriibayaasha qeyr sharciga ku maraya dalka oo aanu uga feejiganahay tahriibayaashu inay ku soo hoos dhuntaan argagixisadu iyo dadka dambiilayaasha iyo muqaadaraadka ka ganacsada. waxaan filayaa inay waay arag u noqon doonto amba ay kaga caagi doonaan inay tahriibayaashu iyo argagixisadu dib ugu soo noqon karto amba u iman karto xuduudda amba borderka Jamhuuriyadda Somaliland oo aanu laban laab u sii adkaynay oo mar walba aanu ka feejiganahay waxa soo maraya. waxaad aragtaan hadda niman ciidanka badda ama ciidanka ilaalada xeebaha uu soo qabtay oo ku soo qabtay iyagoo ka tahriibaya badaheena qaybta waliba gobolka Selel. hawlgallada had iyo jeer anagu haddaanu ciidanka ilaalada xeebaha nahay joogtaan ugu jiraa. haddana dardar cusub baanu gelinay kadib markii aanu helay laashash badan oo dawladdu noo iibisay oo dheereeya iyo kuwo ay nagu caawisay hay'adda IOM oo iyana la dagaalanta maxaan ku raahday human trafficking iyo wax lamid ah. marka waxa hadda halkan jooga inta joogta laakiin waxa jirtay isla bishan inay kuwii saddexaad yihiin aanu qabano oo maxaan ku raahday hawlgallada joogtada aanu ku qabano. waxaanu kuwan tahriibayana waxaan u gudbinaa immigration-ka kuwa wax tahriibinayay iyo kuwa laashash kalena waxaanu u gudbinaa sharciga oo baaritaanka bacdi waxa la geeyaa maxkamadda la horgeynayaa. haddana kuwa saasaanu yeeli doonaa aanu hadda soo qabanay wax walba markaanu anagu soo qabano sharcigaanu hortaagnaa wixii dembi ah. maxkamadduna way xukuntaa nimankan hadda iyo kuwii ka horreeyey oo lagu qabtay labadaba kuwii tahriibinayay iyo laashashkiiba lagu qabtay. waxay laashashka yaalaan saylac bay yaalaan ciidanka baddaana gacanta ku haya. waxaana sugayaan inta maxkamaddu xukumayso laashashkaas iyo hawshooda xukumayso. waxaan dadweynaha uga digayaa baddu inay tahay khatar oo nimanka dhalinyarada ay hadda horteeda fadhiya inayan maxay tahay cilmiyaba u lahayn badda sida khatarteedu tahay iyo sida ay tahay maxaan ku ilaahay hawsheedu. waxaa laga yaabaa intan inay saaraayeen laash yar oo 9 mitir ah 9 mitir intaas hadda intay fadhiyaan baa 9 mitir ka badan. marka laash yar oo 9 mitir intaas leeg fadhido waxa weeye culayskii loogu talagalay laashkana uu ka badan yahay oo khatar wuxuu yahay inuu dago. haddii miisaankaasi dhinac u yara batana waxa uu khatar yahay inuu qalimo. marka ugu horeysaba dhalinyarada hadda joogta ee aan badda u lahayn cilmiga u lahayn waxaan uga digaynaa inay naftooda khatar gelinayaan.
si kastaba ha ahaatee arrinta tahriibayaasha ayaa inta badan xukuumadda Somaliland u maara weyday. Batri Koosar Maxamuud, telefishinka caalamiga Star, magaalada Hargeysa.